lahaayeen mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeedna iyagoo dhinacyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in Baydhabo believing that on Sunday we'll be able to start the process by that independent committee team beginning to meet and roll out the elections calendar, demarcating the electoral areas, developing a criteria for elections of candidates, but also providing space and the criteria for the convergence of elders who then form the electoral college. haweenka Soomaaliyeed waa aaminsan yihiin ibrooy guddiga danjirayaashu waxa ay qareen oo ixtiraamayaan go'aankii ugu dambeeyay caalamka oo aan codsiyo kala gaar ah ka codsanay odayaasha dhaqanka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed waan rabnaa inay aad u og yihiin. The meeting has requested the Somali national security institutions with the support of AMISOM and other security agencies in Somalia to come up quickly with the security map and the architecture that is going to be able to handle 4 main areas. 1, the demarcated electoral areas. 2, to secure the delegates. 3, to secure the candidates. And 4, to secure the electoral materials and electoral officials. soo socday 4 sano aan rajaynayaa doorashooyinka kadib in dalku ay mashaariic waaweyn iyo horumar badan inuu ka dhici doono hadii aan la yiraahdo laakiin waxaan u baahanahay si aan taas u fududno kalsooni u siino kuwa jecel inay malaayiin iyo balaayiin lacag ah ayaga ay leeyihiin Soomaaliya inay keenaan oo ay wax ku dhisaan oo dadka Soomaaliyeed ay dana la wadaagaan kuwa diyaar ku ah inaanan niyad jibin oo aanan tusinin waxyaabo wahay niyad jibin karo marka arimahaasi waa arimo aad iyo aad muhiim noogu wada dhamaanteen sidii aan mararkii hore iyo kulamadii hore ee madashuba ay guul ugu soo gabagaboobi jireen kana waxaan rajaynayaa inuu guul u soo gabagabo ana rabaa dadka inaan u sheego mar kasta oo aan sii dhawaano oo howlaha noo dhimanna aan sii qabanaaba doorka madashu uu sii yaraan doonaa uu sii dhimi doonaa doorka adaha kale iyo shacabka iyo dadka siyaasadda danaynaya ee tartamaya iyo waxa oo dhan iyo doorka deegaanada waxaas kor soo kacayo oo maxaan ku raad taladu ay gacantooda ku sii wareegayaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed